maanta waa maalin taariikhi oo aan sahlanayn waxa magaalada muqdisho lagu qabtay shirka qaran ee caafimaadka wadnaha ee Soomaaliya oo ah dhacdo caafimaad oo cilmiyeysan oo isku dubaridkiisa hanaankiisa abaabul iyo qorsheyntiisuba ay ka muuqato bisayl aqoon iyo weliba hoggaan dhaba waxa ka soo qayb galay marti sharaf aad u culus oo mug iyo miisaan kula wadanka uu hogaaminayo ama hormuud ka yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan dhaqaatiir Soomaaliyeed iyo kuwa ajaaniba khubaro ku takhasusay cudurrada wadnaha madaxda isbitaalada waaweyn oo dalka ka jira oo uu ka mid yahay Somali Sudanese Specialized Hospital ciwaanka shirku sanadkan waa horumarinta daryeelka wadnaha Soomaaliya Advancing Cardiovascular Care in Somalia isbitaalka Somali Sudanese ee takhasusiga ayaa ku soo bandhigay madasha doorka weyn ee uu ku leeyahay daaweynta iyo horumarinta caafimaadka wadnaha ee bulshada iyadoo martidii iyo ka qaybgalayaashuba ay si isku mid ah u bogaadiyeen dadaalka isbitaalka shirka ayaa diiradda lagu saaray arrimo badan oo ay ka mid yihiin in la kordhiyo fahamka bulshada ee cudurrada wadnaha in la mideeyo dadaalada caafimaadka ee dalka in la xoojiyo adeegyada lagu daaweeyo cudurrada wadnaha gudaha Soomaaliya iyo in la dhiirigeliyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed u istaagay kuna howlan badbaadinta nolosha dadka Soomaaliyeed isbitaalka takhasusiga ee Somali Sudanese ayaa ku talaabsaday guulo waaweyn oo muuqda oo ah in ka badan 100 carruur ah loo sameeyay qalliino wadnaha oo aad u adag kuwaas oo maanta noloshooda iyo caafimaadkooduba ay wanaagsan yihiin tani waa guul qaran waa horumar caafimaad waana wax cusub oo u bariya daryeelka caafimaadka wadnaha ee Soomaaliya shirkan ayaa dhidibada u taagay isbedel dhaba oo ku wajahan daryeelka wadnaha isaga oo muujiyay in Soomaaliya ay maanta leedahay khubaro qalab iyo isbitaallo awood u leh fulinta qalliimo heer caalami ah dhacdadan weyn waxay calaamad u tahay safar cusub oo caafimaadka Soomaaliya loo qaaday Somali Sudanese Specialized Hospital waxa uu cadeeyay mar kale in himiladiisu tahay badbaadinta nolosha iyo horumarinta caafimaadka bulshada Soomaaliyeed Soomaaliya waxay leedahay maanta rajo garaacaysa wadna caafimaad qaba